waa afur kadib suuqyada dharka iyo kabaha Boosaaso waalidka awooda waxa ay daadihinayaan ubadkooda oo ay agabka ciidka u iibinayaan magaaladana xarun ganacsi ayay u tahay Puntland oo badeecadu uga soo degto halkani waa suuqa weyn ee magaalada Boosaaso waxaana halkan oo loo yaqaan furshada looga adeega meelo kala duwan oo magaalooyinka Puntland ka mid ah ganacsatada suuqu waxay noo sheegeen in sanadkii hore uu ka saxmad badan yahay sabab la xiriirta in coronavirus sanadadii horeeto dhibaato ku hayay dhulkan waxa soo kacay dharkii ciidda anoo walaalahay iyo ehelkayga iyo qarabadayda u iibinaya magaalada marka soo gala waxyaalo badan baan ku arkay dharkii oo qaaliya dhaqaaliyo iska yar xaaladdu wax iska jirta xaalad iska abaaro iyo laga soo baxay ummadda Soomaaliyeed marka ugu horeysa waxa leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak kullu caam wa antum bil khayr iyadoo aysan xilligan Puntland ka shaqayn shilin Soomaaliga oo ciidihii hore halkan looga adeegan jiray markan waxa kaliya ee wax lagu kala gadanayaa waa dollarka oo uu ka mid yahay kan danabaysan ee la isu diro sanadkan xagga dharka keenidooda way sanadkan ka dar badan laakiin socodka ayaa sanadkii hore ka socod badnaa oo sanadku waxa saameyn ku yeelatay abaarihii waddanka ka jiray oo dhaqaale yari baa dhacday iyo lacagtii shilinka Soomaaliga iyadoo aan muddo shaqayn iyadoo qayb ay ka tahay dhaqaalaha hoos u dhacay dadku marka alxamdulillah caalamiin adigu Boosaaso mar hadii ciidda lagu ciiday gudaheeda adigu ganacsigu dhaqaaqiisu sidoo hore waa ka fiicnaan doona sida aan rajo ka qabno Boosaaso oo ka mid ah magaalooyinka ugu weyn Puntland waxa ku yaal kaama barakacayaal kuwaas oo kor u dhaafaya ilaa 30 dadka ku nool inay caruurta ciidsiyaan ha joogtee waxa ay badankood la daalaa dhacayaan qutulyoomka saako dhan ilmaha waxay laayeen 9 ciyaal baan qabaa 9 ciyaal waxay dhaheen hooyoy annaga dhar ciid baan u baahanahay dhar ciidka noo keenay yiraahdeen dhar ciidkina uma hayno maanta hadii aan waxaan u haysan lahayn ma cawaadi lahayn oo kolay cawaadkeena la maqli lahayn annaga baraka ah haddaan wax loo heli kartiin haddii walaalaheena oo Soomaaliyeed annagu aan Soomaali askuna dad wax noo heli kartiin ilmihii kolay dhibaan qabnaa Maryamo Jibriil Maxamed oo ku nool kaamka Shabeelle waxa ay sheegtay in ay jirto shaqo yaraan oo inta badan dumar iyo ragba aysan guriga dhaafin kaamkan Shabeelle 7 ciyaalna waa haystaa iidaysiga ma haysano baagamuundana waa jirtaa ragana shaqo male anaga haweenka ayna meel ka shaqeysayna malaha qutulyoonkeena haddaan baxno marna waa la soo marna waa la soo waayaa Boosaaso waxaa lagu jiraa xilligii kulaylaha iyadoo oo dadka barakacayaasha aysan awoodin in ay u baxaan dhulka qabow ee badi dadka awooda u xagaa baxaan magaaladana 3 bilood ee xagaaga waxa ay ka mid tahay kuwa ugu kulul Soomaaliya Maxamed Xasan Dhalo Boosaaso